munaasabadan oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Cadaado ayaa lagu soo dhaweynayay go'aankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in magaalada Cadaado ay noqon doonto xarunta baarlamaanka ee maamulka Galmudug halka markii hore ay xarunku meel gaar ah u ahayd maamulka Galmudug. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo dadweyne aad u fara badan waxaana munaasabada dadweynaha ka hadlay ay aad u soo dhaweeyeen go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magaalada Cadaado ugu magacaabay xarunta baarlamaanka ee maamulka Galmudug. marka ay soo jeestaan oo ay imaansadaan Cadaado waxa ma qaadaynaa inaan deegaan qasbi siinayno oo dhul qasbi siinayno dowladda beelaha siinayno waxa kale oo qaadaynaa xildhibaankiisa soo degay ilmihiisu ay iskuulka ay lacag ku dhiganayaan dhulka baarlamaanka u dirnaa oo diyaarina xarunta baarlamaanka waa 200 waana diyaar xildhibaan kasta ay guriga isagoo xaseena 50 xarunta baarlamaanka Galmudug ee Cadaado oo ay ku dhawaadeen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug سيرونتا دمان وحافظ سود وينا مشاريعه وحقولها إنتي سفر كمدحوينها الصومالية يوم مدحوينها الجلمود أي كل ملايين دجاجات الجلمود أي دجاج دجاجين. المنطقة سود وينا مدحوينها غير أحمد على حال إن نكمل نقطة دولة وشوق يسدونه وعنكل شيء وشروطه لما مبدأ haddii aad ka shaqaynaysid waa kula shaqaynaya caawa waxaa halkan ka ifinayaa labadaas gabdha waxay ahaayeen in Galmudug loo helo deked iyo in la helo Galmudug cadka ka maqan caawa waxaan markaati ka ahay in loo xabladaynayo qayb ka mid ah in labadii riyo oo aan u go'aansaday inaan Galmudug sii uga noqdo in labadiiba caawa lahayn dhawaanay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ay socdaal ku mareen deegaanada maamulka Galmudug isla markaana magaalada Cadaado ugu magacaabay inay noqoto xarunta baarlamaanka ee maamulka Galmudug. Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.